kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah deegaano cusub oo laga qabsaday kooxda argagixisada ee Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay deegaanadaasi maxaa ka jira in qorshe siyaasadeed loo hakiyay kalfadhigii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo daafuray barnaamij ku kacaya 150 oo milyan haddaba barnaamijkaasi muxuu yahay wararkeena ayaad kaga bogan doontaan qodobada kale ee warkeenana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xil sare u magacaabay Professor Jiruile haddaba xilkaasi muxuu yahay wararkeena ayaad kaga bogan doontaan qodobadaas iyo kuwa kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe sar kambaleelkana furo si aad ula socdo wararka iyo warbixinadan halkan soo gelino aynu ku bilowno wararkeena ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanada ayaa maanta la wareegay deegaano badan oo hoos yimaada degmooyinka Maxas iyo Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan kuna dhow degmada Aadan Yabaal ee Shabeellada Dhexe gudoomiyaha degmada Maxas Muumin Maxamed Xalane oo qayb ka ahaa saraakiisha howlgalka hogaaminayay ayaa warbaahinta u sheegay in deegaanada ay ula wareegeen si nabdoon kadib markii ay ka firxadeen kooxdii argagixisada Al-Shabaab ee ku sugnaa degmooyinkaasi maanta deegaano badan ayaan la wareegnay oo laba degmo ka kala tirsan ayaan la wareegnay waxaan kula wareegnay si nabad ah oo ayaga ayaan ku daba jiraa meel kastana way ka cararayaan waxa uu intaasi sii raaciyay hadalkiisa waxaan joognaa xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe weliba waxaan 15 kiiloomitir uga sii dhownahay degmada Aadan Yabaal sidoo kale waxa uu sheegay inay howlgallo qorshaysan ay socdaan kuwaasi oo ay qayb ka yihiin Generaal Biixi iyo Odawa isla markaana ujeedkoodu uu yahay inay uga dabagalaan cadowga meel kasta oo ay ku firxadaan dadku wayna soo dhaweeyeen deegaanada aan la wareegnay oo waa dad muddo cabursanaa ciidamada danab oo duqeymaha ka qayb qaatay nimanka nabaddiidka inta ay jiraan way sii soconaysaa duqeymuhu ayuu yidhi gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay inayna ciidamadu ka soo noqon doonin deegaanada ay kala wareegeen kooxda argagixisada sidii hore u dhacday hase yeeshee ay horey u sii wadi doonaan howlgalkooda ciidan haddaba wixii ku soo biira wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan haatanna xildhibaanada baarlamaanka federaalka ayaa ka hadlay sababta uu u baaqday furitaanka kalfadhigii maanta loo ballansanaa ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sheegay inaysan jirin sabab lala soo wadaagay oo furitaanka kalfadhigu uu maanta u baaqday haddii ay ahaan lahayd sabab la xidhiidha dagaalka lagu dhawaaqay ee ka dhanka ah kooxda argagixisada Al-Shabaab annaga waxna soo gaadhay oo dhanka baarlamaanka nooga yimid ma jiro howsha sideedii ayay ku socotaa waxaa iska jira warar suuqa ah oo saxaafaddu ay qayb ka tahay oo ah in kulamada baarlamaanka dib loo dhigayo balse annaga waxna soo gaadhay ma jiro ayuu yidhi xildhibaan Cali Xaaji oo la hadlay saxaafadda wuxuu sidoo kale hadalkiisa ku sii daray wararkaas wax la isku halayn karo ma aha howsha sideedii ayay ku socotaa marka wakhtigeeda la gaadho waa la eegayaa sideedaba arrimaha badanaa lagama hordhaco oo wakhtigeeda ayaa lala sugaa sidoo kale xildhibaanad Qaali Shire ayaa sheegtay in kulanka baarlamaanku uu maanta u baaqday sababo la xidhiidha inta badan xildhibaanada oo safar uga maqan dalka sidana lagu wargeliyey fasaxa wuxuu ku ekaa maanta waana waxaan u taaganahay oo aan intan u imid waxa uu u baaqday maadaama ay xildhibaano badan uu ku jiro gudoomiyaha ay ka yimaadeen safar ayay tidhi Qaali Shire waxa ay hadalkeeda ku sii dartay waxaana la ballamiyey 6da bisha waana iman doonaa insha Allah waxaa noo yaalla shaqooyin badan ayay tidhi baaqashada kulanka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli la hadalhayo in kulamada baarlamaanka loo joojiyey sababo la xidhiidha dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada oo ka bilowday qaybo badan oo dalka ka mid ah haatanna ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta daafuray qorshaha horumarinta korontada ee dalka oo qayb ka ah qorshaha xukuumadda
ee tiirka horumarinta arrimaha bulshada. Barnaamijka horumarinta korontada dalka ayaa waxaa ku baxaysa lacag dhan 150 milyan oo dollar, waxaana fulinaysa wasaaradda korontada iyo biyaha oo kaashanaya Bangiga Adduunka. Sida uu qorshuhu yahay, barnaamijkan ayaa soconaya muddo 5 sano ah, iyada oo loo qorsheeyay in 11 magaalo oo ka mid ah dalka laga hirgelinayo koronto gelin lagu samayn doono goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ee dhammaan gobollada dalka. Ra'iisul wasaaraha ayaa munaasabadda daahfurka ka sheegay in nolosha casriga ah ee korontadu saldhig u tahay, oo la'aanteed aan dhaqaale la horumarin karin, amni la sugi karin, waxbarasho iyo caafimaadna aan la tayeyn karin. Waa lagama maarmaan in la helo tamar casri ah oo dadkeena siisa fursad ay dunida kula jaanqaadi karaan, ayuu yidhi Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre. Xukuumaddu uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa qorshaheeda siyaasadeed waxaa saldhig u ah horumarinta adeegyada bulsho ee dalka ee ku burburay dagaaladii sokeeye iyo kuwa xoreynta deegaanada uu cadowgu ku dhibaateyn jiray shacabka Soomaaliyeed. Haatanna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galabta Cabdirasaaq Cismaan Xasan Jurile waxa uu u magacaabay inuu noqdo la taliyaha sare ee dhanka dimuqraadiyeynta iyo dowlad wanaagga. Sida lagu sheegay digreetadan madaxweynaha ayaa la tilmaamay in Professor Jurile uu khibrad iyo aqoon durugsan u leeyahay qaabka dhismaha dowladnimada Soomaaliya, duruufaha ku xeeran dalkeena iyo qorshaha dib u dhiska qaranka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Alle uga baryay la taliyaha sare ee dimuqraadiyeynta iyo dowlad wanaagga inuu u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee uu u magacaabay. Waxa uuna kula dardaarmay inuu si hufan oo daacadnimo leh ugu adeego qaranka, ayaa lagu yidhi qoraalka madaxtooyada. La taliya Cabdirasaaq Cismaan Jurile ayaa hore u soo qabtay xilal wasiirnimo oo heer federaal ah. Sidoo kale waxa uu ka soo mid noqday labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isagoo ka soo shaqeeya arrimaha horumarinta dowladnimada iyo bulshada. Qodobkaas ayaa warkeena ugu dambeeyay. Sidaas iyo nabadgelyo.